أصحابي مeel kasto dunida dacaladeeda aad ka joogtaan waa 29 Agosto sanadka 2025 barnaamijkeena waxaan idin kula wadaagi doonaa macluumaadkii ugu dambeeyay dagaal qaraar oo aan waxba la isku reeban oo oromadu ay ku soo qaaday Soomaali galbeed gaar ahaan gobolada ku yaala koonfur bari dhulka maanta Itoobiya ay xooga ku haysato waxaan barnaamijkeena qodob ugu dul istaagi doonaa oromadii gobolka Boorana iyo Nagiile oo ambalaasyadii ugu badnaa diyaariyay kooxda shan oo ah garab jabhadeed ka tirsan jabhadda Olla ee qoomiyadda Oromada oo dagaalka ku jirta ciidankii liyuga Oromada oo iyagana dagaalka ku jira xilli shacabka degmada Hudeet ee gobolka Daawa ay ku jiraan difaaci ugu cuslaa oo ay isaga difaacayaan duulaanka Oromadu waxay leeyihiin qabaayilka halkan degan ee Soomaalida deegaankiini ma ahan waxayna rabaan in ay hareereeyaan magaalada Mooyaale qofka aan garanayn deegaankan uu dagaalku ka dhacayo ayaan isagana sharaxaad kooban ka siinayaa jihooyinka ay dagaaladan ka socdaan maabkii baan halkan idin ku tusi doonaa soo dhawaada dhamaantiin aan ku bilaabo 4 maalmood oo xiriir ah ayaa dagaal qaraar ka socdaan degmada Hudeet ka tirsan gobolka Daawa Soomaali galbeed dadka deegaanka ayaana difaaci ugu cuslaa kala hortagaya qoomiyadda Oromada oo iyadu dagaalkan aan u kala harin si guud ba wuu jiray dhamaca dhul balaarsi ee qoomiyadda Oromada meel kasta oo Soomaali degtay inay ka qaadana go'aankaas wuu jiray oo wuu socday si gaar ah gobolka Daawa ayaa xiisadiisu hadda meesha ugu cuslayd maraysa maxay rabaan Oromadu waxay rabaan in degmada Hudeet oo la siman Nagiile in Soomaalida laga soo barakaciyo oo Soomaalida gobolka Daawa degan ee degmada Hudeet ee la siman Nagiile ku sugan inta dib loo soo riixo la keeno deeka sufti waa degmo ka tirsan Liibaan halkaas la rabaa in la keeno oo Soomaalida safkaas la geliyo si gaar ahna Hudeet waxay ku aadan tahay Mooyaale waxa la rabaa in iyada la isla simo Mooyaale iyo Nagiile hadawna waxay rabaan in dagaal ballaaran oo Mooyaale oo hadda laba u kala qaybsan intay soo qaadaan Soomaalida laga soo saaro oo Soomaalida saf ballaaran la geliyo oo deeka sufti dadkii laga soo barakiciyay Hudeet iyo dadka laga soo barakiciyay Mooyaaleba in la soo riixaa la rabaa maysan qarsan way cadeeyeen annaga waxaan u socnaa bay dhaheen Oromada joogta eeriyadan iyo mataqaanaa gobolka Boorana iyo Caruusha waxaan u socnaa bay dhaheen Caabud Waaq iyo Luuq iyo Garbahaare iyo Gudub waxay dhaheen magacyadaas oo dhanna waa magacyo Oromo ah wana been aan markii idin fahansiyo istiraatiijiyadda maabka uu yahay waa kana horta
قبل كان دعوة waxaa laga gooyay 2016 gobolka Liibaan oo ah gobol ka xilligan Soomaaliya ay xuduudka ugu dheer wadaagaan dhanka Gedo markaan ka hadlayno dhanka Gedo Liibaan xuduudda ugu dheer bay wadaagaan si fiican daawo marka maabka aynu fiirino meeshan ku qoran koonfur bari Itoobiya ayuu ku yaalaa waa gobol istiraatiijig ah oo xiriiriya Kenya iyo Itoobiya buu xiriiriya wax kale lama rabaan Oromadu waxay rabaan iyagu inay noqdaan koridaarkaas Kenya iyo Itoobiya xiriiriyo Soomaaliya aysan dhaxayn rabaan أنا مركو فانسي واكنا مابك هديت سمجد مو يالي بيكو آدن تاي توس مقالة النقيل اللي يراهدو أو الصومالي دو هانجرتي لغا سو بركعيي أو لغا سو ساري هدي سنكاش الشين ويلا سمن تاي هذا أساس كسي راعي مابك dhulkaas nageela la siman orama wada qabsatay maxay rabaan markii hudeed oo degmo gobolka daawo ah oo la siman nageela waa khalad bay dhaheen in hudeed ay kala dhex gasho oramada mooyaala qayb haysata iyo nageele waa khalad bay dhaheen saad maabku uga jeedaan maxay rabaan markii deeka sufti waa taas markii وديجان ودقمة داسوي وعلى وديك كسفتي وقبل كليبان إلا لصو سما الشعب كالصوماليات هالكاس كسوغان انت لا سو عيريو إن هالكان الكنال إن هي هالكان الكنال مركز محاد عيو استراتيجيات أدس آبا نقيلة يمو يالا إحبار دعيسا استراتيجيات أساسوي مركز ambalaasyadii oo dhan oo yaala gobolka Boorana iyo oramada Aruusha ee ku sugnayd Nagiile jabhadii olla qaybteeda shan laan ka tirsan baa la yiraahdaa dagaalkii ku jiraan 4 maalmood buu dagaalku socdaa labadii maalmood oo hore waa lagu jabiyay si xun baa loogu jabiyay baydadkoodiina waa lagu dul dhaanteeyay markii dib loo riixay ayay saakay aroortii dagaalkii ugu cuslaa soo qaadeen iyadoo hadda wax war aan laga heli karin oo shacabkuna ay isdifaaciyaan hudeed markay waa xarunta saldhigga weey Soomaalidu degmada ah ay duulaanka ka qaadayaan hudeed lama weerarayo wuxuu dagaalku ka socdaa tuulada ama qabalaha loo yaqaan Chobi waa deegaankaas hudeed intaas u joogo iyo tuulooyinka la yiraahdo Niini iyo Dig qabaayilka Garre ayaa dagaalka ma taqaanaayay ku socda qabaayilka Garre ayuu dagaalku ku socda magaalada la yiraahdo Nagiile iyo degmada la yiraahdo Deeka Sufti oo qabaayilka Mareexaan gaar ahaan reer Xasan ay degan yihiin iyadana dagaaladii ugu cuslaa ayaa dhawaan ka dhacay haddana waa la isor fadhiyaa oo qabaayilka Deeka Sufti degan iyagana waxay ku aadan yihiin Nagiile oromada Aruushada degan iyaguna dagaal saf balaaran ah ku qaaday haddaan ku faahfaahiyay markii waa isku xirka weerar isku mar ah oo lagu qaadayo qabaayilka Mareexaan reer Xasan ee Deeka Sufti degan iyo qabaayilka Garre ee hudeed degan si dib loogu riixo oo halkaas la isugu geeyo si fiican ayaad u fahantay ayaan u maleynayaa tuulooyinka Niini iyo Dig iyo tuulada loo yaqaan Chobi ayaana dagaalada ugu culus ay ka socdaan halkaas markay joogto markay
oromada waxaa garab siinayo ciidankii militariga Itoobiya waxaa garab siinayo ciidamadii liyuga oromada waxaa ku daaban jabhadii Oromiya ee Olla gaar ahaan laanta loo yaqaan Shen aaway marka ciidamadii liyu booliska ciidamada liyu boolisku ma inay shacabka xuduudaha Soomaaliya degan laayaan sida ka dhacday Dacwaaley sida ka dhacday mataqaanaa ii sheeg ereyadan kale ee Soomaalidu degan tahay miyay u xil saaran yihiin mise sida oromadu ay uga barbar dagaalamayaan ciidankooda iyo jabhadoodii xataa jabhadoodu waxay la dagaalantahay militariga Itoobiya la dagaalamaysaa haddana waxay la ka barbar dagaalamaysaa ciidanka liyuga oromada ciidanka militariga Itoobiya iyo waxa iska barbar dagaalamay jabhadii oromadu is dagaalsan inuu dagaalku dagaal qorshaysan oo Soomaalida la raba in looga saaro dalka uu yahay waa u jeeda aw ciidanka liyug ay soo galaan dagaalka mise waxa dagaalka lagu fiirsanaya qabaayilka Garre iyo beelaha Mareexaan walaw hadda dagaalku Garre uu ku socdo Mareexaanka laba bari koor dagaal lagu qaaday halkaas waxaad jeedaa in xataa ciidamada liyuga iyo madaxda deegaankuba wax meeshan la inoo keenay oo aan wax qorshe iyo hadaf ah aan lahayn ay yihiin haddii shacabka la soo weerarana ma taqaanaaye aysan difaaci xukuumadii ka horreeyay cagjar inay ilay way wajiraysaba deegaanka oo waxaad marqaati ka tihi in 3 degmo oo ka tirsan gobolka Shiniile ama City loo gacan galiyay Canfarta oo dagaalo qaraar ay ka dhaceen cagjarna cadaadis laga saarayo Addis Ababa oo leeyahay isku aad maxaa la inooga baahan yahay marka haddaan Soomaalinahay war naftaan mar bay baxdaa waa in la sameeyo qabaa'ilka qowmiyadaha kale Itoobiyaanku waxay leeyihiin jabhado hadday Itoobiya leedahay jabhad ma samayn kartaan maxay amxaaradu jabhad u leedahay maxay Tigreegu jabhad u leeyihiin maxay Oromadu jabhad u leedahay aniga maxaa ii diiday ma aniga markay waxaan ahay tuka cambaarne marka qowmiyadaha kale jabhadaha laga wada joojiyo ba anigana jabhada la iga joojin ha aniga jabhadaydu haddii jabhadaha Itoobiyaanku ay la dagaalamayaan ciidanka Itoobiya aniga jabhadayda duruuf baa keentay militariga Itoobiyana duulaan kuma yihi xukuumadda Mustafa Cagjarna duulaan kuma yihi dhulkaygaan ku difaacanahay ha jabhad Soomaaliyeed oo difaacda deegaankan waa in la sameeyo maalinta annaga ciidanka militariga Itoobiya ay duulaan ugu soo qaadaana maalintaas aynu is arkaynaa waxaan marka halka ka cadaanaysa inaan jabhad Soomaaliyeed la dagaalamayno isirka Soomaaliyeed la dagaalamayo waxa loo baahan yahay mar kasta waan ku celceliyaa waa in jabhad Soomaaliyeed oo xilli kasta furin kasta ka jawaabta waa in la abaabulo waa in la sameeyo waa in jabhad Soomaaliyeed oo deegaankan difaacda la sameeyo waa xaqiiqo biyo kama dhibcaan ah haddii la leeyahay jabhad Soomaaliyeed lama samayn karo waxay duulaan ka qaadaysaa ciidanka Itoobiya maya jabhad Soomaaliyeed lama samayn karo waxay kala goynaysaa Itoobiya maya waa waxyaabaha lagu soo gabado weey laakiin se annaga Itoobiyaankii baanu iska difaacaynaa deegaanka ka difaacaynaa hal gaar maalinta aan qorshayaashaas kala leeyma laakiin se hadda waa degdeg dhig joojin baa loo baahan yahay haddii ciidanka liyuga ku difaacay oo ciidamada liyuga loo sameeyay inay shacabka laayaan Soomaalida ay laayaan haddii ciidankii ma taqaanaa militariga Itoobiya uu adiga kugu duulayahay marar badan galbeedka City maxaa ka dhacay waxaa la arkay markii beelihii Ciise ay jabiyeen Canfartii ciidamada Itoobiya oo dagaalka ku jiro waxyaab noqotay xilligaas in la arkay markii Canfartu soo qaada deegaan soo weerarto in Soomaalidii khasab loogu guriyo baabuurta Itoobiyaan oo la leeyahay shacabka la barakicinayo bal adigu ka waran dawladda la rabo inay dadka kala celiso oo intay qabaan la soo kaxayso shacabka ku gurayso si shacabka loo sii cararsiyo shacabka la jafay
ها markaas guryahoodii beerahoodii waxoodii dhan la qaadan waxaas markay u jeedo qorshe demographic engineering u yahay qorshaan xilli hore la dejiyay xilligan abi axmedna waa soo laba kaclay haddii xilligii TPLF deegaano fara badan laga farmoloojiyay abi axmed xilligiisina ay saan tahay maanka gashada Soomaaliyeey xukuumad kasto Itoobiya timaada ama Oromo ha noqoto ama Amxaar ha noqoto aandhe ama Amxaarada ha noqoto ama Tigreega ha noqoto in idinka indhaha la idinku eegay ay tahay hal il iyagu waxay isku haystaan waa meeshooda laakiin adiga hal ilaa lagu eegaya qowmiyad Itoobiyana adiga heshiis kula ah ma ay jirto ma ay jirto adigu muslim baa tahay inaad gaalaysiisid baa laga sii hortagaya inaad muslimisid baa laga hortagaya dheh adigu Soomaali baa tahay hanko dhan baa lagu diiday waxa loo baahan yahay markii war qorshe difaac oo jabhad lagu sameeyo oo ma taqaanay deegaanka lagu difaacayo waa in Soomaalidu ha timaado haddii kale waxa meesha iga socda waa saddexdii dibi maalinta garar la soo cuno oo la soo ceysho reexaanka iyagana waa la soo celinaya safka saa looga maraya go'aanka ku xiji ciisaha ku xiji qabaylka kale ku xiji marka dambe inagoo dhooban xuduudka Soomaaliya iyo xuduud beenaadka Soomaaliya hal ila arko tasaas la rabo maxaa la rabaa kale go'aan bay ku gaareen magaalada la yiraahdo gaal kacyo aan la tuqliyo ormaya leh baan arkiin waa gaal kicin gaal laga kiciy annagana laga kiciy waxay ku leeyihiin mareexaanka iyo garaha degan deegaanadaas hadda gobolka daawo degan wabiga daawo loogu magac daray gobolka daawo waxay ka guureen bay ku leeyihiin ka soo guureen isha gobolka gaday ka guureen gobolka gaday hatta degmooyinkiis annaga ah magaalada bagdhabo annaga leh ku leeyahay marka waxa loo baahan yahay waa taariikh been ah anu daba galaan sameeyo rasiid baan sameeyaa waa khiyaali waxba kama jiraan waxaan haynaa taariikhdii qarnigii dhexe qarniyadii hore iyo qarniga buu haynaa waa been weey waxaan rabaa inaan ummadda ku soo gabagabeeyo arrin kale oo sir ah maabka caadiga ee caalamka anu waxba ka bedeli karaa shirkadda Google baa la hadlaysaa waxba laga bedeli karaa niman Oromo ah baa wax oo jooga Mareykanka ayaa waxay tagaan xarunta shirkadda Google ee Mareykanka halka markay tagaan bay waxay dhaheen 18 degmo oo Soomaaliyeed baa wuxuu ku jira saacadan maabka Oromiya maxay rabaan markii istiraatiijiyada rabaan waxa la rabaa dhulkan dhan 18 degmaba annaga leh gobolada daawo iyo liibaan iyo shiniila ama city iyo gobolka faafan kulli degmooyinkaas waa ka soo wada jiraan goboladaas degmooyinka hoostaga dhanka xuduudka xiga oo dhan kulli way qaateen macnaheedu waxay ku dhijiyeen maabka waa kana mooyaala xataa maabka ku jirta mooyaala way ku jirta maabka mooyaala ka bilow ilaa iyo ma taqaanaa ku jid gobolka shiniile ee city way ku jirtaa magaalada Jigjigo maabku wuxuu jiraa 2 kiiloomitir koonfurta Jigjiga way ku jirtaa xataa way ku qoreen magaalada Tulli Guuleed la yiraahdo xataa way ku jirtaa maabka oo waxay ku direen Oromiya ku direen qorshahan marka waa la diyaariyay waa qorshe ballaaran oo aad u ballaaran si guud marka dhulkaas oo dhulka Soomaali galbeed oo Oromadu ay 18 degmo ay ku dareen maabkooda maabka Soomaaliya iyo Itoobiya waxa taa dhulkan Soomaali galbeed la haysta ay ku jiraan magaalooyinka Goldogob Caabud Waaq Buuhoodle Goroyo Cawl ilaa iyo ma taqaanaa isha xuduudka ugu dheer ee halkaas kala wadaagna Itoobiya Goroyo Cawl ku dar magaalada la yiraahdo Doolow waxay ku jiraan degmooyinkaas Itoobiya ku jira waxaan khubaraad yaas
حدود كرسمي مركز الصومالي ده جودها أو بناء كجوكتنا وحبل الله ما أقرأ ودقموين كودي والقات كوا جودها إثيوبيا كجران دقموين كودي والقات مركز هالكاسوح وجوده إن إسرق الصومالية لا تقال لما وحقيقة ويا بيكمان معاه haddii kuwii xaggan joogay oo laha Itoobiya ka tirsan yihiin 18 degmo laga qaaday kuwii xorta ahaana la leeyahay doolow iyo magaalada Caabud Waaq iyo mataqaana ilaa Goroyo Cawn waa Itoobiya maxay ku yaala marka adiga maxaad sugtaa maabka waa kaasa maabka Oromiyana waa kaasa kan Itoobiya guudna waa kaasa adaa laga rabaa marka sa ku tashan lahayd qorshe ballaaran baa loo baahan yahay maskax baa loo baahan yahay qorshayaal adag oo aysan cidina ogeyn oo dhulkan Soomaaliyeed lagu difaaco oo Soomaalidu ka midaysan tahay baa loo baahan yahay iyadoo xukunka Itoobiya lagu hoos jiro haddana waa in dhulka Soomaaliyeed la difaaco haddii kale xuduudda rasmiga waxay noqon doontaa inta kuwan la soo ceeliyo magaalooyinka Caabud Waaqeen waa la qaadan doonaa doolow waa la qaadan doonaa Goroyo Cawl baa la qaadan doonaa Boorama la qaadan doonaa Balligubad la qaadan doonaa kulli dhulkaasna waa la qaadan doonaa magaalada Buuhood ku jirta kulli way ku jiraan magaalada Galdogob baa ku jirta Galdogob Itoobiya ku jirta Galdogob waa lagu daray balan ku jirto marka fadhiga laga kaco fadhiga laga kaco war istiraatiijiyad hal la sameeyo war qof kasta oo arintan ka shaqeyn kara oo ku xeel dheer ha kaco war cid kasta oo awood u leh ha istaagto ha istaagan maabka waa la deji Google baa la wadaagay first waa in Google loo tago shirkadda Google waa in la tago way dhulkan Soomaaliya say ku siisan waa Soomaalida gudaha ku jirta iyo kuwa dibadda waa inay iskaashadaan way dhulka Soomaali galbeedna 18 degmo xilligan xukuumadda cagjar ay xukunto baa lagu daray dagaalana waa ka socdaana in Soomaalida laga soo sifeeyo la rabaa Soomaali galbeed iyo Soomaaliyada xorta ah dhulka ay wadaagaan degmooyinkii Caabud Waaq iyo Balanballe iyo Galdogob iyo Goroyo Cawl iyo Buuhood iyo Doolow iyo Suufkii ku daro mataqaana ilaa balad Xaawo iyo Doolow xuduud gadow Itoobiya كل وقت مقالة دولة والله ما قيبسن أو دولة وأوضة هي دولة وصوماليا دولة دي صوماليا كلها مركو قرشان ولا دياري ولا سمي ولا فرسمي ما لين دب هدينا كورس وحا أركي دونتهم قبل كبكول يبي وحتى عندما يتوبيان الجوجانا يادو تلي يجيني قرشياله وين كوضع إن ما تقارن يا هؤلاء هسه كسودان وعن كدريا نينك أرمك إيه هاد الجوج مقدشو ما قاعد يقول لي هاي نينكاس وسردون وبساس وأنك كشقينا يا إن عيدا ماذا إثيوبيا يجر جدها Soomaaliya gobolada Hiiraan Bay iyo Bakool iyo Gedo ciidanka Itoobiyaanka ee jooga in qoysaskooda loo keen xaqiiqo ah hadda nadiisay halkaasna ay ku ilmo dhalaan bartaas ku ilmo dhalaan waxaaduna degaan subax qurana inuu ka dhex toosna iyadoo magaalooyinka gobolka Hiiraan iyo Bay iyo Bakool ay joogaan shacab qowmiyada Itoobiyaanka ay joogaan ku ilmo dhalaan qorshahaas uu ka shaqeynaya ninkaas anigu waxaan la yaabanay sida Xasan Sheekh waraaqaha aqoonsiga uga guddoomay ma qarsan jirin nacaybka uu Soomaalida u qabo ما قرسنت له كو جودها Soomaali galbeed joogana wuu necbaa كو جودها Soomaali joogana wuu necbaa ما قرسنت qofka noocaas sirdoonka Soomaaliya sidoo xogto waa la ina haystaa anu runta la diisay Soomaalida xorta ah madaxa laga haystaa kuwa Soomaali galbeedna waa la haystaa war qorshe ma haystaan dadkan iyo dalkan saasaynu noqonay